السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بالشوين تصوماليات آديات بني سلامين كسر هذا كمبني جيني وينا forever living product يا لعبة عصب. قيبتنا ما أنت واحد نيجوسو قد بين دونا وحويا وقيبتي حلقة ترنكا. ترن كنا سيدنا نقصون هيدا عم بقبضي بوكاي منا يا عم بنينكي والله بدأ أصل إسكو جاي بعد ترن ليدا هذا. مركها قيبتنا وقيبت الدمر كو استعماليين قيبتنا هذا الدمر كو استعماليين سيدا نيجا مقطع وحكي كوبينيين لبر شيء لبدا شيء كوبيني وحويا عليورا بيريا نكتر يفتلايز هذا intani waxay qabanayaan dhowr faa'iido bay u leeyihiin qofka dumarka ah waxay u leeyihiin kowina caadada haduu khalkhal kaga jireen caadadii u saxdo hadii uu qofka uu caadadii oo kale ay weydo oo khalkhal kaga jiro hadii ku xanuunsato kale inuu saxo hadii gabadhu infection leedahay aad iyo aad buu sidoo kale ugu fiican yahay tan waxa la yiraahdaa Fitolize tan waxa weeyaan waa kiniinka yara Fitolize kana waa Beria Nectar Beria Nectar waa ka u fiican intan kaadi mareenka oo hadii infection iyo waxyaabaadkaasi jiraan oo dhan ayuu clean gareynaya tan Fitolize baa la yiraahdaa waxay u wanaagsan tahay halka ugu xanta kobcintooda sixitaanka dhiigga inta baad aad ugu fiican tahay tan 160 ml buu qaadanayaa aroortii cuntada kadib iyo xilliga casarkii tanna wuxuu qaadanayaa aroortii iyo xilliga casarkii labada waqti baa ugu qurux badan kan laba mar buu isticmaalayaa oo Fitolize taana 60 ml buu isticmaalayaa intaas ayaa gabadhu ay u baahan tahay run ahaantii wax badan buu ayay gabadhu il badan iskaga dareemi doontaa insha Allah bulsho badan oo ay nala joogta oo aad iyo aad u isticmaalay alaabta oo ilaahay la gacan qabtay oo ayay iyaguna jira qaar 4 sano aan waxba aan ilaahay siinin 6 sano aan siinin bisabab illah weeyaan laakiin dadaalka iyo hadana de waxa weeyaan ay sababta ilaahay ba ku timaada laakiin dadaalka iyo waxaanu leenahay inaku inaynu wax raadino mar walbana aynu juhdi galno marka aad baan nii soo dhaweynaynaa saaxiibayaal qaybtaas waa qaybtii dumarka qaybtii ragana waa in la share gareyn doonaa aad baan mahadsantiin salaam calaykum